kulanti wanaagsan saaxiibayaal meel walba naga daawanaysaan dhawaada waxaan muuqaalkan ku dul istaagi doonaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda oo maanta dib ula wareegay degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo maalmo kooban ay kooxda argagixisada shabaab ay gacanta ku hayeen degmada Ceel Baraf dhibaato badan ayay maalmaha ay kooxdu gacanta ku haysay u geysteen guryo hanti dadka shacabka ay leeyihiin ayaa gabi ahaanba halkaasi lagu gubay dad shacab oo fara badanna halkaasi way ku laayeen intay gacanta ku hayeen sida ay sheegeen dawladda federaalka Saraakiil u hadashay ciidanka xoogga Soomaaliyeed oo maalmihii la soo dhaafayba abaabul xoogan waday iyo dadka deegaanka ee taabaxsan la dagaalanka kooxaha khawaarijta ayaa maanta dib ula wareegay haddaba dib ula wareegidda magaalada Ceel Baraf waxay uga dhigan tahay kooxda khawaarijta jab inteedan ayaa gaaray ama khasaare inteedan ayaa dagaalkaasi ka dhashay waan dul istaagi doonaa dhanka kaleeto taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed taliya Khalid oo ku sugan jiidaha hore dhowrkii maalin la soo dhaafayba ayaa ballanqaad aan horay noociisa kale loo arag u sameeyay dadka deegaanka aad iyo aad ayaana saacadihii la soo dhaafay ay shacabku u hadalhayaan ballanqaadkaasi oo waliba uu hortooda ka ballanqaaday haddaba ballanqaadkaasi waxa uu salka ku hayadana waan eegi doonaa dhinaca kaleeto Mareykanka ayaa war ka soo saaray xiriirka kooxda shabaab iyo sidoo kaleeto kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalka Yemen Mareykanku war culus ayuu ka soo saaray waxa uu sheegay in marba marka ka dambaysa uu sii xoogeysanayo xiriirka labadaasi kooxood ka dhaxeeya waa kooxda Soomaaliya ka dagaalanta iyo kooxda Yemen ka dagaalanta iyadana waan eegi doonaa waxaan dhinaca kale to iyadana mid iyo labo ka dul istaagi doonaa mucaaradka maamulka Koonfur Galbeed oo war ka dhan ah Cabdicasiis Lafta Gareen soo saaray shir ay xalay ku yeesheen magaalada Muqdisho ku gorfeeyay xaaladaha iyo sidoo kale tallaabooyinkii ugu dambeeyay ee uu qaaday Cabdicasiis Lafta Gareen iyadoo dhanka kalena eed culus u jeediyay dawladda federaalka ay ku eedeeyeen inay indhaha iyo dhagahaba ka laabatay tallaabooyinka guracan ee uu qaadayo Cabdicasiis Lafta Gareen haddaba go'aanka ay soo saareen iyo eedaha culus ee dawladda ay u jeediyeen iyo tallaabooyinka ay sheegeen inuu Cabdicasiis Lafta Gareen uu qaaday oo waliba dhibaato badan ku ah sida iyagu ay sheegeen shacabka iyo siyaasadda Koonfur Galbeedba ayaan iyadana eegi doonaa hadduu Allaahimo soo dhawaada muuqaalka like saara aragtidiina nagula wadaaga qaybta commentiga markale Ramadaan Mubaarak soo dhawaada saaxiibayaal haddii aynu ku bilowno ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda ee iskarabsanaya ee ka howlgala deegaanada Hirshabeelle gaar ahaan gobolka Shabeellada Dhexe ayaa maanta la wareegay degmada Ceel Baraf ee gobolka Shabeellada Dhexe oo maalmihii la soo dhaafay ay kooxda argagixisada shabaab ay gacanta ku hayeen degmada Ceel Baraf dhowrkii maalin ee la soo dhaafayba kooxdaasi ayaa gacanta ku haysay kadib markii ay guluf colaadeed oo ballaaran ay maalmo ka hor ku qaaday deegaano badan oo ka tirsan gobolka Shabeellada Dhexe oo ay ka mid ahay degmada Ceel Baraf isla markaana ay la wareegeen dagaalka maalintaasi ay qaadeen kooxdu sidii ay u qaadeen ayay ugu suura gashay oo waxa ay gabi ahaanba la wareegeen deegaanadii ay dagaalka ku qaadeen sida degmada Ceel Baraf Daarunicma Al-Kawthar Ceel Cali Axmed Miritaqwa iyo deegaano kaleeto oo dhowr ah ayay dagaal hal maalin gudihii ay kula wareegeen wixii intaa ka dambeeyay deegaanada Ceel Cali Axmed iyo sidoo kaleeto Al-Kawthar ciidanku dib ayay ula wareegeen walow isriix uu ka dhacay oo qaar ka mid ah ciidamada dib looga qabsaday dhowrkii maalin ee la soo dhaafayna xaaladda deegaanadaasi ay qasnaayeen degmadan laakiin gacanta ayay ku hayeen diyaar garow xoogan oo maalmo qaatay oo dhinacyo kala duwana ayaana u suurta gashay in ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleyda ee taabaxsan la dagaalanka argagixisada ee deegaanadaasi ka abaabulan ee macawisleyda loo yaqaano ay maanta dib ula wareegeen dagaal xoogan oo saacado qaatay ilaa hadda daqiiqado ka horna la sheegay in duleedka magaaladu xabadda ay kasii dhacayso ayay ciidanka iyo kuwa ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo kuwa macawisleydu ay kula wareegeen gacan ku haynta degmada Ceel Baraf degmadan Ceel Baraf
ودقمة وين كمدة دقموين كواوجو وين صوماليا كرهان ولي بالشباب هذا دحه ودقمة قديمة بابليشن بدنا يكونوا كوحدو سفدو ولي بالدجال قلصون كدعين أيه كل ورجين أنت أي كعنت كوهينا نباتحوا جنب كجيستين سيدا دتك الدجان كي يسلو كلا سراكيل وهذا شيء دولة فدرال كوا أي شيء جن وحسدوا كلا عضينا يا مقالة لجوبها هي براه بالشلا ولا أركي جوريو كوبنية حافظتنا أيه جوبين بالي أنت أي كعنت كوهين دت سيدا كلا تو أي تنسيهين إن تاجر صناعين دولة أيه سيدا كلا تو لا إلا أي هذا هالك قار كمدنا أي بدلين sida wararku ay sheegayaan si kastaba ciidanka ayaa maanta la wareegay guluf qolaadeed oo ballaaran isbahaysi culus oo xoogan ayaa ka socda gobolka Shabeellada Dhexe oo ay isku soo bahaysteen maamulka Galmudug Hirshabeelle dawladda federaalka iyo ciidamada macawisleyda afartaasi garab oo iskaashanaya ayaana ku hawlan sidii deegaanadan ay dib u qabsadeen kooxda iyo halkii ay kaga sugnaayeenba looga sifayn lahaa kooxda argagixisada ee shabaab dhinaca kale kooxdan iyada naftirkeeda culays xoogan bay soo saartay Shabeellada Dhexe magaalada Jowhar duleedkeeda la sheegayaa in xubno badan oo ka tirsan kooxda ay soo galiyeen deegaano badanna ay kor joogaan marka rogaal celintan dhowr sano kadib ay kooxdu dib u soo rogaal celisay ee deegaanadan Hirshabeelle ay qayb ku qabsatay qaybna weli ay kor taaganto weliba caasimadii ay kor joogto ayaa sababaya marka in dawladuna ay dib isku abaabusho oo dagaalo ay ku qaado kooxdan argagixisada si kastaba dagaaladu weli waa socdaan diyaar garowna waa socdaan dhinaca kale waxaa gobolka Shabeellada Dhexe ku sugan iyo weliba gobolka Hiiraanba ku sugan taliyaashii ugu sareeyay ciidanka xoogga Soomaaliyeed qaybahooda kala duwan ama laamaha amniga ee dawladda federaalka sida taliyihii ciidanka lugta taliyihii ciidanka xoogga Soomaaliyeed taliyihii nabad sugidda iyo sirdoonka iyo taliyaashii kaleeta ee ka wada hooseeyay ayaa ku wada sugan jiidaha hore oo abaabulka qayb weyn ka taliyaha ciidanka xoogga Soomaaliyeed ayaa sidoo kale ballanqaad u sameeyay ciidamada macawisleyda oo ayagu si mutadawacnimo ah oo ayagu nafurnimo ah oo xoolahooda qorigay ku iibsadeen iyo rasaastay ku iibsadeen kula dagaalamaya kooxda khawaarijta wuxuu taliye Khalid u ballan qaaday ciidamada macawisleyda inaysan rasaas ka go'aynin intay doonaan ay ku dagaalami karaan la siinayo gaariga ay u saaran yihiin mar walba uu joogtaynayo mid ka dhaawacmana diyaarad uu halka uu taagan yahay kaga qaadi doono waa ballan qaad cajiib ah horay dawladdu way u ballan qaaday laakiin ma hirgelinin isagu laakiin wuxuu ballan qaaday inuu arintaas uu joogtayn doono uuna garab taagan yahay taliyaasha kale ayaa sidaas la mid ah dhiirigelin u sameynaya ciidanka xoogga Soomaaliyeed iyo sidoo kale ciidamada macawisleyda ee dagaalka kooxda kula jira waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho dhinaca kale Mareykanka ayaa war ka soo saaray xiriirka kooxda argagixisada ee shabaab iyo kooxda xuutiyiinta Yemen ka dhaxeeya arintan dhowr bilood ka hor ayay soo baxday Mareykanku wuxuu sheegay inay sii xoogaysanayaan xiriirka labadaas kooxood ka dhaxeeya loona baahan yahay in isha lagu hayo nin lagu magacaabo John Kerry oo ah kusimaha safiirka Mareykanka ee golaha ammaanka qaramada midoobay oo qaabilsan ayaa waxa uu sheegay in ay sii xoogaysanayaan xiriirka labadaas kooxood u dhaxeeya caalamkana loo baahan yahay in isha lagu hayo xiriirka labadaas kooxood ee marba marka ka dambaysa sii xoogaysanaya hadaba xiriirkoodu maxaa faa'iido ku jirta maxaa walaac looga muujinaya sida wada ogsoonayba kooxda xuutiyiintu waxay haysataa hub casri ah gantaalada dheereeya oo gantaalada ay Yemen ka garaacaan ay inta soo dalintay sii mariyaan ay ku burburiyaan maraakiibta iyo sidoo kale agabyada kale ee military ama saldhigyada military ee Israel gudaheeda marka waa koox awood badan dhanka farsamaynta hubka marka laga fiiriyo kooxda marka shabaab hadii ay la heshiiyaan oo kooxdan heshiiskoodu u dhab noqdo khatar badan ayaa Soomaaliya ku soo wajahan oo aad iyo aad u weyn hadda iyagoo qori aakaya iyo mid waxa weeye garabka laga tuuro oo hoobiyaha loo yaqaan kaliya wata ayaa khatartooda loo adkeysan laaya hadii marka dadaalka dawladuna uu sida noqdo
iyo weliba hadacsanaanta dowladda ay sida noqoto kooxduna ay sii hormariso heshiisyadeeda ay la gelayso ururada caalamiga khatar badan ayaa ka imaan karta sidaas awgeed ayuu caalamku u hadalhayaa oo leeyahay xuutiyiinta la kari leeyahay haddii kuwan ay sidan ku darsadaan waa khatar kale oo soo korodhay maraykanku marka walaa xoogan buu ka muujinayaa heshiiska labadaasi kooxood iyadana waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho dhinaca kaleeto mucaaradka maamulka koonfur galbeed ayaa xalay tashir ku yeeshay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa mucaaradkan hogaaminaya guddoomiyihii hore ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane mursal iyo sidoo kaleeto madaxweynihii hore ee maamulka koonfur galbeed shariif xasan sheekh aadan labadaasi nin ayaa hogaaminaya oo mucaaradkaasi shirka yeeshay hogaaminaya waxay ku dhawaaqeen in horta shirkigu sii socon doono oo asxaabta mucaaradka koonfur galbeed oo dhan la iskugu yeedhi doono waxay intaasii raaciyeen in dowladda federaalku ay dhegaha ka furaysatay idhahana ka laabatay falalka guracan ee uu samaynaye uu ku dhaqaaqay madaxweynaha maamulka koonfur galbeed cabdicasiis lafta gare waxa ay sheegeen in baarlamaankii koonfur galbeed wakhtigiisii mar hore u dhammaaday ilaa haddana shaqadoodii ay sii haystaan oo ay shaqaynayaan waxaa intaa uu sii raaciyey in doorasho aan loo dhannayn maamulka koonfur galbeed ama madaxweyne cabdicasiis lafta gareen uu qabanayo qabanqaabadeeda uu ku jiro waxaa dhanka kale dowladda ay ku tilmaameen gaboodfallo madaxweynuhu uu geystay in dowladdu aysan ka hadlin oo gaboodfallada ay ku sheegeen in cabdicasiis lafta gareen uu kula kacay shacabka iyo sidoo kaleta siyaasiyiinta mucaaradka ee ka aragti duwan gaboodfalladaasi dowladda federaalku waxba wararkama aysan soo saarin falalka guracan ee ninkan uu samaynayo ee faraha badanna dowladda federaalku kama aysan hadlin baarlamaankan wakhtigoodu dhammaaday ee weli sii shaqaynaya ee doorasho qabanqaadinayana iyadana dowladda federaalku kama aysan hadlin waana wax aada looga xumaado ayay dhaheen xubnaha mucaaradkaa ee warmurtiyeedka ka soo saaray shirkoodii uga qabsoomay magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya si kastaba maalmahan waxayse soo taraya xogo badan oo la xidhiidha in lafta gareen uu qabsanayo doorasho aan loo dhannayn oo markaasi weliba wakhtigeeda aan la shaacinin sidii tii ka dhacday jubbaland oo kaleeto magaalada kismaayo ee axmed madoobe uu isku doortay waana midda marka ay walaaca ka muujinayaan daneeyayaasha u tartamidda ama musharaxiinta danaynaya inay u tartamaan kursiga madaxweynaha maamulka koonfur galbeed dhaqdhaqaaqyo ayaa ka socda magaalada baydhabo oo madaxweyne cabdicasiis lafta gareen uu ka wadaa oo la xidhiidha shirar uu la yeelanaya dhinaca etoobiya saraakiil ka socotay booqashada xeryaha ciidan isku dubaridka ciidankiisa iyo sidoo kaleeto ciidamo cusub oo la soo saarayo waana arrinta walaaca keenaysa ee markaasi ay ka cabsi qabaan xubnaha mucaaradka in cabdicasiis lafta gareen uu awood u adeegsado doorasho oo soo socoto taasi oo isagu uu markaasi kusoo laabanayo waynu eegi doonaa wixii ka soo kordho hadduu allayno